أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu shukri naqaynaa oo xamdi naqaynaa inuu isku keenay dhammaanteen fii beytin min buyuutihi, masaajidkan Seataag ee magaalada Seattle, salaad subax kadibna ay tahay inuu ku ballansaneen duruustan aynu wadi doono 3 cisho, maanta oo sabtiya iyo axadda iyo isniinta, kuna saabsan axaadiis aynu ka soo xulanayno kitaabkan riyaad الصالحين ee uu qoray alimaam nawawi raximahullahu tacaala. aynu ka faa'iideysan doono sharaxa uu ka bixiyey sheekh maxamed ibn saalix ibn uthaymin raximahullahu tacaala. axaadiistaasi oo la xidhiidha waxyaabaha ay shareecadu nahyiday ama waxyaabaha ay shareecadu ay manciday. dabcan darisku waa uun axaadiista intaan akhriyo aan dabeetana aan raaciyo inaan intii ilaahay ga qadaro aan ka tarjumo af Soomaaliya, ka tarjumo sharaxa sheekha. marka sharaxu laysa min cindi maaha uun waa tarjuma af Soomaaliya oo dul mari doono insha Allah. sharaxa uu sheekhu xadiistan uu ka bixiyey rahimahullahu tacaala iyo fawaa'ida uu sheekhu ama fawaa'id dhinaca adabka ha noqdaan iyo dhinaca akhlaaqda baan u jeedaa, iimaaniyaadka iyo fawaa'id fiqhiga oo iyadaba u badnaan doonaan uu sheekhu sheegay. inta aynaan haddaba axaadiistaasi aynaan gudagelin, maadaama mawaadiicda axaadiistani ay ku tacalluqaan ama ay la xiriiraan waxyaabaha ay shareecadu ay karaahiysatay ama sharcigu u xarimay, waxaan filayaa waxa maqaamkan ku habboon inaynu wax isku xusuusino sida loo baahan yahay in looga taxadiro in lagu dhaco wixii ilaahay jalla wacala u xaaraan yeelay ama wixii alle subxaana wa tacaala uu inoo diiday. waayo ayuha alikhwa, waxaynu ku noolnahay zaman baynu ku noolnahay la doonayo in xuduuddii ilaahay subxaana wa tacaala la jebiyo oo ummadda loo tuso in waxaan la leeyahay xaaraan iyo xalaalba ay tahay in is adkayn diinta la isku adkeynayo oo dadku qofba siduu doono iska yeelo, wuxuu doono iskaga caamul falo. طبعا inagu dhul muslim maanta ma joogno, laakiin haddii aynu suuraysano waxa caalam islaami maanta ka socda waxa weeyaan طبعا waxa ay incikaasaad ay u yihiin waxa adduunyada hore uga socday ee doonaya in caalam islaamina maanta lagu dhaqo oo ah qof walba wuxuu doono iska sameeyo, maadaama yani amniga daakhiliga ee dalka iyo wadanninimadii wadanka la wadaagay aan dib loo geysaneyn. qof walba wuxuu doono iska sameeyo shareecadan iyo xuduudan ilaahay ka sheekaynaysan iyo maaha zamankani zamankii lagu dhaqmi karaay maaha. ظروفta aynu ku noolahay kuwa caalamiga kuwa iqliimiga inagu xeeran
intuba inoo saamaxayaan inaynu ka hadallo sharci iyo diin iyo xuduud alle iyo wax noocaas oo kala fikradaha noocaasina ay ikhwa waxa hormood ku ah caalamka islaamiga gudihiisa yani niman kooxo habaysan oo ishuwana oo ka kooban cilmaaniyiin iyo liberaaliyiin ay ku adeegsanayaan acdaada ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii ay culimadeennii hore salafku imaam axmed oo kale uu istaagay fitnadii khalqul qur'aan ibnu taymiya raximah allahu tacaala waa shaacirada iyo muctasilada iyo suufiyada iyo shiicada uu naqdiyey waxaan filayaa arrimaha maanta culimada islaamka ee salafiyada iyo ahlu sunnaha u nisba sheegtay hortaagan inay caddeeyaan oo ay ummadda u qeexaan waxa weeyaan sidii suwantaasi habaysan cilmaaniyada iyo liberaaliga doonaya inay diinta aasaaskeygii baabiiyaan oo ah in ilaahay loo hoggaansamo in sharcigiisa la isku xukumo in diintiisa la raaco doonaya inay baabiyaan asaaskaasi diinta inay dhulgariir ay geliyaan culimada islaamtu culimada muslimiinta ee salafiyada iyo ahlu sunnaha u nisba sheegtay haddii doonayaan maanta inay mawaaqiftii imaam axmed iyo ibnu taymiya iyo qeyrkooga istaagaan waxa weeyaan arrimahaasaa loo baahaya in ummadda ay u caddeeyaan hadday taasi ay ka aamusaanna waxa weeyaan dee inay ku celceliyaan masaa'il aad moodid in aanay maanta ta'hiir badan ba aanay waaqaca ku lahayn dee waxa weeyaan tajdiidkii ixyaagii looga baahnaa inay ku kacaan maaha kuwa ku qumaya maaha casrigooguna lama noola waxa weeyaan cusuur soo dhaaftay ayay doonayaan inay dib ugu noqdaan masaa'il hore quruun badan magaranaysaa jirtayna ayay doonayaan inay ku qasbaan oo aysan ka geliyaan casrigoogan uga baahan inay wajahaan mashaakilka yaalla ee loo baahan in manhajkii iyo caqiidadii ahlu sunnaha lagu eego oo lagu fiiriyo haddaba ayuha alikhwa ilaahay wuxuu inooga digay من ارتكاب يعني ما نهى الله عنه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلهي كتاب كيس كريم كوحا وكيري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وآيات عظيمة ويان إلهي جل وعلا أوليه فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر هكدك تونادان الذين يخالفون كوا خلافا عن أمره أرنك أيويان وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة إن فتنة أصيبته أو يصيبهم عذاب أليم أما عذاب درني وكدعو أو يعني وقوة كبحايا يخرجون عنه أمر كالرسول كيس كبحايا ولا يبالون به أنو أبيرين وانا ظاهرة عامة يهلقوا مانتا إن أن أحكامتي إلهي أن لو أبيرين سأقرر ميسيد إن أن شرعي إلهي أن لدنين مانتا مسلمين بضن وحويا رأيك عالمي يا قوانين الدولية أيها كلحوق بضن شرعي إلهي يسنه رسولك صلى الله عليه وسلم يا حدود إلهي وتجي وحويا مانتا يعني الأمم المتحدة يو القوانين الدولية أي كفارته أي دقتي المسلمين تنب لأنه هو لقى حقوق بدين لقوا قصبي أيا لقدساء والشرعية ذي الإلالية لكن وحي إلهي شرعي جيسها يوحي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم لو ما أبيره ركا ساسويا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هكدك تونادان إلى أين أمر كله هل الدكتون هذا أي الأخوة خطر ويان هدي لقد دكتونان وهي مخالفة أرنك الرسول كان صلى الله عليه وسلم عقوبة كذا لنس إلهي بقى آية القرآن كان يقول شيء جاية وأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتنة في قلوبهم والعياذ بالله فتنة قلوب تود كل عذاب واي ومحي فتنة ضاسئة إن شكي ودينتي كجرا بعد اليقين دينتي أي يقين تو هيستين إني كبشكي أنبا ومحي يعني مخالفة أرنك الرسول كل خلافي أيا وح قفك جارسين يسابه إن شك قلبي يسوق كل شيء والعياذ بالله الساعة أيام ما قرن الساعة سيد أرنك الرسول كأو خلافه ويعني أعداء الدين وما قرن الساعة إن ورعاي اللي قاعد هيرو دين تبكي شكيبة تاسنا وتوضم بيسوي تقف مرك شك قلبي يسوق كجرا أو شهوة أما شهوة ذي أجشوا waayo wax weeyaan shaytaankuna ay ikhwa labada baabun buu qofka bil aadanka markuu haleynayo ka soo gala ima baab shubahaat oo baab shahawaat baab kala malaha shaytaanku
qofka bini'aadanka hore iyo dambaba markuu qof bini'aadan shaytaan haleenaayo ama waxa weeyaan baab shubahaad